sidee muwaadinka loo gaarsiin karaa dastuurka fikradeeda waxa ila tahay waxa lagu gaarsiin karaa dadkeena Soomaalida badanaa anaga dad wax akhriyo uma badnin dad wax dhageysta u badanahay sida idaacadaha oo kale qof walba hadda iyo magaalada idaacadaha way yaalaan marka idaacadaha hadii lagu faafiyo waxa isdhahayaa qof walba oo muwaadin ah waa la gaarsiin karaa dastuurka sidee muwaadinka loo gaarsiin karaa dastuurka waxa loo wada gaarsiin karaa in maamul awood leh oo wadanka uu ka jiro sidee muwaadinka loo gaarsiin karaa dastuurka in loo fidiyo idaacadaha laga sii daayo warbaahinada in la qabto barnaamijyo ku saabsan dastuurka iyo in TV-yada laga sii daayo in dadweynaha lagu baraarujiyo inay dastuurka wax ka bartaan sidee muwaadinka loo gaarsiin karaa dastuurka haddii la rabo in dastuur la gaarsiiyo bulshada la gaarsiiyo waa in hay'adaha u khaaska ah dastuurka in ay sameeyaan in ay maamul u sameeyaan gaarsiiya dastuurka bulshada gaarsiiya tareenin loo qabto tababaro loo qabto wacyigelin loo sameeyo sidaas ay noqon kartaa in bulshadaas la gaarsiiyo dastuurka markaasna si fiican loo fahansiiyo